anigu daraad baan waxaan ka hadlay arrimaha gobolka banaadir ka dhacaya xagga nabadgelyo la'aanta iyo qaababka aan u arko in wax looga qaban karo isla markaasna madaxda inay wax ka qaban karto haddii ay shaqeeyaan laga rabo inay tahay madaxda gobolka banaadir oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka maadaama gobolka banaadir madaxdiisa iyo madaxweynaheeda uu yahay marka arrimahaas oo amniga iyo qaabka loo abaabulayo aan waxyaabo ka taabtay iyo gobolka banaadir inuu hawshaas ay tahay hawshiisa inuu wax ka qabto iyo qaabka uu uga qabanayo iyo cidda inuu wax kala qabato oo doonayana inuu isagu barnaamijkiisa iyo taladiisa iyo wuxuu rabo oo ula tago oo mar walba la oran oo lagu marmarsiyo bulshada gobolka banaadir hanala shaqeeyo warin la shaqeeyo waa sax laakiin in la yimaado qorsho iyo balaan iyo mantaqaana lagu shaqeeyo sababtu waxa laga shaqeynayo waxa laga shaqeynayo inay madaxdu sheegta sidii la arki jiray marka arrimahaas oo noocaas uga hadlay ayuu wuxuu ugu soo eedeeyay xildhibaan warsamo joodax wuxuu mantaqaana arrimaha uu nagu eedeynayo arrimaha uu ka hadla muraadkiisu waxa weeye inuu dawladdu leedahay oo haysto inuu ku diido anagu nin mas'uul ahaan ahay mas'uulna soo hayn jiray gobolka banaadir amnigiisana madax ka ahaa jiray oo gudoomiyaha gobolka banaadir iga sareeyay keligii wax badan aan ka qabtay oo dadka Soomaaliyeed og yihiin inaha aan ka soo marnay 6 sano dhowaan ka shaqeynay oo dadka Soomaaliyeedna aan wax u dhiban aan rijeynayna cadawgana la dagaalamayna qaababka loola dagaali karo dadka Soomaaliyeed maalin walba dilaya oo wariyaasha dilaya oo shaqaalaha dawladda dilaya oo ciidamada dilaya oo shacabka dilaya qaabka talada iyo qaabka loola dagaalayo iyo qaabka mataqaana in gobolka banaadir oo abaabul dheeraad oo ku difaaco gobolka banaadir taladiisan soo jeediyay taladii waxay abuurtay in dagaal iyo aniga la yiraahdo ummadda Soomaaliyeed leedahay ayuu ninkaas boogaya uu difaacaya in la igu eedeeyo ummadda Soomaaliyeed leedahay boobi maayo ma jecli hore uma boobin haddana boobi maayo waxaan isleeyahay mas'uuliyad xumo iyo mataqaana ka soo noqosho hawshii loo xil saaro ummadda Soomaaliyeed u hayay ayuu marmarsiyo u raadinaya gudoomiyaha gobolka waxaan cadeynayaa gabdho Soomaaliyeed oo masaakiina oo mataqaana caruurtooda korsanaya oo muddadii dheereed meel ay ku ganacsanayeen ayuu ku haystaa arrintaasaan kala hadlay mar anugu oo gabdhaha Soomaaliyeed waxay mudan yihiin mataqaana inaad u samarto inaad dhaqaalaydo dadka aad xukuntay kamid yihiin dadka canshuurta laga qaaday kamid yihiin dadka in la xurmeeyo wax loo ambeeyo u baahano muddo la siiyay dawladdu ka maarmininka meesha ay degan yihiin oo mataqaana dawladdii iyo dawladda hoose madaxdii dawladda hoose ka horeeyay ay siisay ku xurmee dukumeentiga iyo madaxda ka horeeyay waxay bixisay qaabkay u siisay iyo danaha meesha ka jiray dartood arrintaas asagoo ugu colaysanayo ayuu wuxuu yiri dhul dawladda ayuu ninkaas isku aadinaya oo soo celinay oo ka soo celinay oo haystay anigu ma haysto dadka degan meesha gabdho Soomaaliyeed weeye sida aad u jeedin waxaan rabaa inaan idin tuso dukumeentiga u haysteen oo ay mataqaana dawladda ay siisay oo dawladda hoose ay siisay dalka la degan yahay iyo magaalada guryaha ku yaalna dawladda hoose bixiday ayaga sharci u leh tana dawladda hoose bixiday sharcina u leh haddii asagu kaligi gobernatore isu yaqaan dadka Soomaaliyeed iyo dawladda hal weydiyo magaca ku qoranuna aniga ma aha malihi ma haysto kuma haysto waxaan u hadlay Soomaalinimo waxaan u hadlay dadka inuu dadkii oo xukumay marna ehel u yahay oo yihiin inuu u naxariisto dawladda haday meelay ku shaqaysato u baahan tahay dhulkii qaranka Soomaaliyeed mataqaana ay lahayd oo dhamaad dhooban
asagiyaa lagu sii shaqaysan karaa tan baa haddii loo baahdo laga qaadan karaa meel dadka Soomaaliyeed leeyahay ayaa haddii dawladda loogu shaqaynaa loo qaadi karaa warqadahaas ay leeyihiin tan baa ka mida sabralooyinka hore loo bixiyey annagu ma bixin kumana qorin magacyada ku qoran waad arkaysaan rashabuutadood iyo sabraloogoodiya iswata anigu uma samayn anigu ma siin waxa kaliya oon kala hadlay dadkan gabdhaha masaakiinta oo ganacsanaya ha ka dhigin qaxooti ha ka dhigin oo bannaanka ha dhoobin maanta waa dad ganacsada ciyaalkooda biisha waa dad Soomaaliyeed xildhibaanadoodii nahay dadka inaan u hadalnaan xildhibaano u nahay wax muraad oo kaleeto nooga jira ma jiraan asaguna waa gudoomiyihii gobolkeena dacwo uma qabo ceereyn mayo xumayn mayo waxaan rabnaa inuu ammaanka tala ka geysto inuu toon balaanka magaalada tala ka geysto inuu bulaacadaha iyo dhulka waxqabadka u baahan oo mataqaanaa talo iyo qorsho iyo ula yimaad iyo mataqaanaa horumarin dalkan mataqaanaa howlo badanaa laga soo maray haddana in laga maro la rabaa anaa iska haysta ama anaa madaxaan wax la qabanayn dalka wax tari mayso dalka waxa wax taraya waxa weeye in laga shaqeeyo in ummadda loo shaqeeyo in mas'uuliyadda lagu dhiibay aad sida ay tahay uga shaqeydo ee aadan ka shaqaysane dad dan yara oo Soomaaliyeed oo maalin walba dhimanaya oo maalin walba dayac ku dhacayo oo maalin walba shido iyo dhib badan ku dhex jira ayaa madax loo yahay in marka lagu shaqeeyo madaxdaas iyo mas'uuliyadda iyo dadnimadeeda way waxaan anagu doonaynaa waxaan ka hadlaynaa waa intaas wax kale kuma haysano wax kale kama rabno ma doonayno maalin walba madax caayaysa madaxda qaranka oo dhigooda madaxda qaranku inay isxurmayso inay isla shaqayso inay isku dawlad tahay ay ku shaqayso ayaan doonaynaa warqadaha ay qoreen oo ama isagu qoray ama maamulkii ka horeeyay qoray oo ka mid yahay ninka la yiraahdo ninkii la dhigi jiray gudoomiyihii ka horeeyay kii ka sii horeeyay waxa dhan warqaday ka wataan gabdhahaas waa gabdho Soomaaliyeed waa gabdho mataqaanaa meesha degan dad badanaa lamida oo ama jardiinooyin ama suuqyo la bixiyay sidoo kale u degan ayaga kaliya la bartilmaameysana kuwa kalena haddii ay maamulkii gobolka Banaadir siiyeen in la taabto uma arko kuwaana in la taabto uma arko waxaan u arkaa haddii baahi looga maarmi waayo ay timaado haddii shaqo badan la qabanayo gobolka Banaadir ay degmooyinkii iyo waaxyihii iyo dalkii ay ka shaqaynayaan oo baahi xafiisyo lagu shaqeeyo loo baahdo inay ka qaataan waa mumkin waa loo qaateen laakiin xiriirkii dawladda iyo xafiisyadii dawladda iyo xarumihii dawladda aan dayactir iyo ku shaqeyno ayaan ka muuqan war waxaan rabnaa annagu dawladdu waa dawladdeeni gobolku waa gobolkeeni dadku waa dadkeeni waxaan u hadlaynaa dadka weeye waxaan xilka u haynaa dadka weeye dan kale kama lihin xilka ay haystaan ma rabno nimanka mataqaanaa maamulka haya mataqaan xumaan kale nagama amar dhaxayso war haddaan dadkeena kala hadalno niyaa dadka ma qabatosaan oo dadka warqadahan aad siideen in maanta haddana la yiraahdo waa la dumina oo lacag laga qaatay oo mataqaanaa maamulkii ayaga ka horeeyay oo warqadaha siiyay kala duwan in mataqaanaa la yiraahdo la dhaqaale dareeyo oo dumar ah oo caruur leh oo adeeganaya oo xaq dhowr badan u baahan ma qabataan ka hadlaynaa qabnaa waxaan ka hadlaynaa ceebeynta iyo xildhibaanada maalin walba la caayayo oon ama ka midnahay ama xildhibaanada Soomaaliyeed ee aan maalinna dantoodana ugu tagin mid gaarana ugu tagin in maalin walba la yiraahdo xildhibaanadii qarankan ka shaqeeylaana nama qabato aad u mahadsantihiin annagu intaasaan ka hadlaynaa waxaan rabnaa in mas'uuliyadda qaranka sida ay taa loogu shaqeeyo inaan ummadda iyo mas'uuliyiinta aan la dhaleecayn oo la caayin inaan ayaga caayna ma jeclin wixii laga rabayaa laga sugaa wixii laga rabayaan ka sugayna dadka Soomaaliyeed ka sugay inaan caayno waa ka ishoonayna mas'uuliyaddeena ma ahan waxaan rabnaa inay
annuna xaq dhowraan dadka Soomaaliyeedna xaq dhowraan shaqada laga sugayo ee amniga iyo horumarinta gobolka Banaadir inay qabtaan haddii aan qaba karin madaxdii u dhiibtay ayaga la xisaabtankeedii uga fadhinaa